suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo qaybo ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay dacwad la sheegay in qoyska madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka gudbiyeen gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ee UCUD Engineer Faysal Cali Waraabe tale dhibaatada keeni karta anigu waxaan leeyahay madaxweynaha wartartankii hadda rag ka badisay in deel ad ku tiiqtiiqsato waa foolxumo rag tartankii ka badisay inaad xadhig ugu darto lagama eegay inaad waxa qabatay laga sugay waayo doorashada ma iman doonto taasaa farla cajiiba keeni doonta dhowto ninku madaxweynaha uu kula tartamay waa madaxweynuhu baad xidhay madaxweyne xidhana lama arag oo dawladii hore soo maray Somaliland ragii madaxweynayaasha ama xidhan ragii mucaaradka markaa ku ahaa waxaan leeyahay أحزابta mucaaradku inay wax tilmaamaan xaq bay u leeyihiin wixii qaldanay markaa xukuumadda talada haysa ay ku dhaliilayaan xaq bay u leeyihiin ay ku cadeynayaan haddii la yidhi qoyska madaxtooyada ka fushay arrintaasi waxa weeye nin waliba qoys buu ka dhashay qoysna qoys ma xidhi karo laakiin waxaan isku xidhi karnaa wax sharciya waayo mushkiladda sababi doontaa way ka weynaan doontaa intaan lagu soo dooran markii aad mucaaradka ahayd adaaba dadka waxaa ka sheegi jiray qoyska madaxweyne arrinka mucaaradnimadii ku soo martay dadka mucaaradkee wax walba ku hadlaya dee inaad nabadgeliso weeye tartankii haddaad ka badisay od heshay oran lahaa arrintiisa maadaama ninkii haystay uu sii daayey inay xukuumadduna faraha Xamse Dabaare Telefishinka Star Hargeysa.